gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Cali Saleymaan Ramaax oo ay weheliyaan guddiga qaadhaan ururinta dhismaha wadada Ceergabo ayaa kormeer ballaaran ku soo maray goobaha ay ka socoto shaqada dhismaha wadada Ceergabo waxaana gudoomiyuhu halkaasi si mugle ugu kurgalay habsami socodka hawlaha dhismaha wadada isagoo halkaasna warbixin kaga dhageystay gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga qaadhaan ururinta wadada Ceergabo Siciid Barre Qorwa oo ka waramay halka ay u marayaan guud ahaanba hawlaha dhismaha wadada gobolka Sanaag waxa kale oo guddiga qaadhaarinta wadadu halkaasi ku gudoomeen deeq lacageed oo dhan $3,000 oo ay wadada ugu soo yabooheen jaaliyada gobolka Sanaag ee dalkaasi Cumaan waxa dhamaanteen maanta halka sharaf inoo ah in inagoo taagan goobtii shaqadu ka socotay gudoomiyaha gobolka anagu guddigii baanu nahay gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye ku-xigeenku ay kormeer shaqo noogu yimaadeen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga qaadhaan ururinta gobolka inaanu halkan goobtii shaqada ee uu dhagax dhigay ee bilaabay inaanu musharaxnimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ka hambalyayno oo niraahno waa taa shaqadii way noo socotaa way bilaabantay way soconaysaa warxumada shiiloo dhan waa dhamaaday musharaxnimadiisuna waa muqaddas waxaan ka gudoomay Saalax Axmed Xuseen lacag dhan $3,000 oo uu soo diray Jaamac Axmed Xuseen oo ka soo diray Cumaan waa ka haynaa uri dhammaay shiid baanu taaganahay waa taabal dowsartu cuntay in yar baa ka sii qiiqaysa wadada Yuflay ku dhowdahay waxaanu leenahay madaxweyne Silaayo waanu dooranaynaa wax kale ku dooran mayno caatifad ku dooran mayno qabiil ku dooran mayno wadada uu noo bilaabay waa aragtaan warin dhaadhaama Muuse Biixi Axmedna waxaanu leenahay madaxweynaha isgarab taag khilaafka kulmiye soo ururi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa guddiga hawshan gacanta ku haya wadada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay hawl adag baa haysaan hawl aad guusheeda durba ka midho dhaliseen baa haysaan idinka iyo wakaaladduba aad baad u shaqaynaysaan waa markii labaad ee muwaadiniinta soo xilqaantay ay lacag ku wareejiyeen guddida goobjoogna runtii aanu ka ahayn waxaan ballan qaadaynaa oon hubnaa shaqadii oo socota iyo hawshii loogu talagalay oo ay qabanayaan guddida injineerada mid waliba wadadu haddaan ka warramo halka ay marayso isagoo gudoomiye guddidoodii ka warramay waxa weeyaan 10 kilomitir imika waxa u dhiman shayga iyo daamirkii oo lagu shubo iyadana way timi waa la sugayaa waxa kale reer Ceergabo laftigooda u sheegaya gurmadkii Berbera laftigiisu ina la joogaayo cagaftii ugu qaalisanay ay reer Berbera soo diray horta iyaduna ina soo oo ka shaqeynaysa wadada imika xagga hoose joogtaa runtii wadada dhowrka meelood ay ka socotaba si fiican ayay u socotaa waxaan rajaynaynaa in ummaddu ay ka wada qayb gasho qof waana dhamaanaysaa runtii wadadana way dhamaanaysaa qof waliba wuxuu gashaday ayuunbuu ku leeyahay waa xasanaad soconaya yaana idinka dhammaanin baan leeyahay insha Allah waanaynu sii wadi doonaa sidii haddeer inaanay ku ekaan intane inay waddanka dhammaantii wada gaadho oo barigana aynu sii gaadhsiinaa waa muhiim runtii horta ilaa badhan aynu ku sii darno marka tan aynu dhammayno insha Allah waa Maxamed Xasan Saraaf TV-ga qaranka Somaliland Ceergabo